qaraxan oo ahaa mid la dhigay meel maqaaxi ah ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xaafadda Huludaag ee dhanka galbeed kaga beegan magaalada inta la xaqiijiyay ilaa iminka 3 qofood ayaa ku dhaawacantay mana jira wax dhimasho ah sida uu warbaahintu u xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Taakoy magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan xaafadda Huludaag laanta Hilaac ee suuqii hore ee xoolaha magaalada Beledweyne ka dhacay qaraxaas oo runtii geliyeen kooxihii nabadiidka ahaa ee sharwadayaasha ahaa iyagoo raba marka in ay ku halaagaan dad shacab Soomaaliyeed oo abriye ah oo aan waxba galabsanin sida lagu yaqaaniba ma taqaanaa ama ficilada xun ay sameynayaan ay kamid ahayd waxa la rabaa runtii inay ogaadaan bulshada reer Beledweyne dhibaatada nimankaas iyo makaayidooda iyo dhagartooda inay ka feejignaadaan aysan ma taqaanaa aysan ogaadaan kastoo ay sameynayaan in ay tahay wax qabiixa oo xun fikirkoodana uu yahay inay umad baabi'iyaan runtii waxaad arkaysaan meesha qaraxa la dhigay waa juwaan dhuxul ay ku jirtay juwaan dhuxul lagu iibinayay oo haweeney ay meel meherada ku haysatay in halkaas si makri ah loogu aasay la geliyay waxyaabo aalad qaraxda marka ujeedada ay kala haayeen ma garanayna meeshaas ma ahayn meel dawladeed ma ahayn meel ciidan degan yahay ma ahayn meel ma taqaanaa siyaasad lagu falanqeeyo ma ahayn meelaha ay beegsanayeen ee hadda ummadda ay lahaayeen meeshaas ay beegsadaan loo filay ma ahayn runtii waxa weeyaan waa meel shacab meeshaas runtii waxay rabeen in shacab ku baabi'iyaan laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay uma suura gelinin waxa ay rabeen meeshaasi waxa ku waxyeeloobay 3 muwaadin oo reer Beledweyne ah oo rag ayaa dhaawac ka soo gaaray dhaawac waliba fudud oo basiid ah firra ah iyana ma taqaanaa isbitaalka lagu daweynaya hadda loo soo qaaday dadkiina ma taqaanaa wax dhibaato ama wax magaciisa kala meesha kama dhicin xasiloonina ayaa ka jirta hadda meeshii marka waxaan sheegaynaa bulshada reer Beledweyne inay ogaadaan nimankaas dhibaatooyinkooda inay tahay dhibaato guud ay ku baabi'inayaan shacab abriye aan waxba galabsanin ujeedkooda ay sahaan ujeed siyaasadeed ama dawladeed aysan ahayn awooddoodana ay ma taqaanaa runtii ay soo weeqantay awooddooda weeqantay markii awooddooda weeqantay dhinac walba ka soo weeqantay awooddooda waxay ku soo aruurtay in ay shacabka beegsadaan meelaha ay shacabku ku badan yihiin ay wax dhigaan insha Allah ta'ala waa taxadirkeedan qabna ciidamada nabadgelyadana ka hortag wax walba waxay sameeyaan ka hortag iyo ka daba tagay leeyihiin hadda insha Allah ta'ala ka daba tag ayaan wadnaa insha Allah ta'ala inaysan mar dambe dhicin insha Allah waa ku rajayna maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Beledweyne ku soo badanayay miinooyinka dhulka lagu aaso mana jira ilaa iminka cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaas ka dhacay xaafadda Huludaag Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuni JTV Beledweyne